qalqaali aad iyo aad may maqli jirin hadalka marka inta badan oo nafaqa la maaha waa cunto caloosheeda dilaysa kasoo qaad telefoon iPad-ka TV-ga waanan ka aad ban السلام عليكم كسو دواada channelkayga YouTube-ka magacaygu waa Nimco kalkaali caafimaad baan ahay nurse baan ahay hooyana waan ahay 2 caruur aan leeyahay maanta waxaan ka hadlaynaa 5 shay oon ka joojiyay inanteeda autismiga leh ka ugu horeysa waa sonkortan ka joojiyay sonkortu inanteeda waxay ka dhigtaa qalqaali aad iyo aad energy badan bay siisaa inanteeduna ma focus garayso marka waxay ka dhigi jirtay aad iyo aad bay energy badan u lahayd may maqli jirin hadalka marka wixii ugu horeysan ka joojiyay waxay ahayd sonkortana wax badan ayaa laga helaa waxaa laga helaa juiceska caruurta la siiyo juice boxeska waxaa laga helaa nacnaca shokoolaha sidaas leeg waxyaabo badan bay sonkorta ku jirtaa imaga fruitska oo kale sonkor baa ku jirta laakiin waa sonkor natural fruitka waan iska siiyaa xoogaa laakiin sonkorta artificialka ah ee lagu darsado shaaha kale waa aad iyo aad baan uga gooyay ma fiicna sonkortu marka labaad waxaan ka gooyay caanaha lo'da inantaydu allergy badan bay leedahay oo siiba ukunta naalada iyo nutska lowska marka caloosheeda way dhibaan caanaha lo'du protein la idhaahdo casein ayaa ku dhex jira proteinkaasina waxa la idhaahdo inflammation ayuu keenaa inflammationkuna waxa weeyaan calooshiibaa naqas badan ayaad yeelanaysaa si fiican wax uma ridqaysa calooshii markaa sidaa la-aanteed nafaqadii aad ka heli lahayd caanihii baanan maskaxdii gelayn hadduuna maskaxdii gelaynna maskaxdaadii si fiican uma shaqaynayso marka waxaan fiirsaday mar walban caanaha siiyo inanteedu waxba si fiican imay maqli jirin magaceyga way kusoo jeedsanaysaa laakiin imay iman jirin marka waan ka gooyey caanihii lo'da waan ka gooyey marka dhooxa geela nagu bedelay iyo caanaha geela oon ka dalban jiray maraykanka oo layga soo diri jiray iyo marmaron almond milkan siin jiray iyo macadamia milk marka saddexaad cuntada la shiilshiilo wixii cuntada shiidshiidan maxaan ku dhahdaye cuntadan burgerada friidka frieska chicken burgerka waxaasoo dhan waan joojiyey halkan annaga kanadana waxa la idhaahdo poutine ayaa jirta oo waa baradho la shiilay oo lagu daray cheese oo marka dambana soos lagu daro oo canadianku aad u jeceliyeen oo inanteedu aad bay u jeceshahay mar walba way ii weydiisan jirtay waan ka joojiyey because mar walba cuntadaa cunto badan oo nafaqa la maaha waa cunto caloosheeda dilaysa oyna nafaqa badan ayna ka helin marka wixii la shiilshiilay cuntadii process foodka oo dhan even waxaa ku jirta baastada daqiiqda badan waxaana waan ka joojiyey marka video kalaan samayn doonaa aan ka hadlayo wixii aan ugu bedelay laakiin wixii process food waxa la idhaahdo oo dhan cuntadii la shiilay ee saliidda badan lagu shiilay oo dhan waan ka joojiyey marka cuntada badankeeda cuntada hilibka cuntada khudradda badan ee la karkariyey ayaan siiyaa marka afaraad inanteeda aan ka joojiyey wixii screens kasoo qaad telefoon iPad-ka TV-ga waanan aad baan uga yareeyey beriga yareyd aad bay u daawan jirtay screenku caruurta maskaxda waxbay ka yeelaan blue light waxa la dhaha bay leeyihiin marka aad loo eego loo fiiriyo screenka ilmuhu ma focus garayn karo
wuxuu eegayaa un screenkan buu eegayaa, waxba ma baranayo. Ilmuhu halkuu wax ka baran lahaa, uu dhulkii uu gurguran lahaa, uu socsocon lahaa, uu kufi lahaa, uu wax afka gelin lahaa, ayuu baran lahaa. waxaa ha taaban, waxaas waad ku gubanaysaa, waxaasi halkaa ha marin. waxaasay carruurta wax ku bartaan, halkuu waxaasoo dhan ka baran lahaa. saasoo maantii berri uu 3-4 saacadood u hor fadhiyo tv-ga amba screenka amba iPad-ka, indhaha iyo maskaxday wax yeelaysaa. marka screenka waan ka yareeyay inanteeda. markaas screenkii talabaadna screenku aad iyo aad buu u cawiraa, maadaama qofkii seexan lahaa, seexashadii iyo hurdadii ayuu ka qabanayaa. marka insomnia wax la dhaahdo, hurda la-aan baa ku dhacaysa. marka dhakhtaro badan waxay kula taliyaan waalidiinta, ilmahaaga intuuna seexan 2 saacadood iyo 3 saacadood ka hor screenka ka jooji. anigu inanteeda imika maba daawataba, marmar iyo dhif ayaan marka la fadhiyo sabtidii axadii baan saacad markaan timaha u tidcayo ayaan siiyaa, laakiin waaban ka joojiyeyba. marka shanaad, anigu inanteeda waxaan ka joojiyey inaan ku qayliyo. Okay, so I'm being very honest. marmar hooyaa leeyahay, waa la daalan yahay. waxaa dhacda inaad sidii naloo soo koriyey Jabuuti iyo Soomaaliya inaad tirahdid war waxaa daa, war halkaa mar, war sidaa ka qabo, daa maxay qayladii badnayd. iyo markaan isleeyahay discipline garee amba waxu sheeg, qaylo iyo hadal xoog dhaahdo iyo codko aad loo sameeyo, cabsi. ilmaha carruurta autistiga especially inay cabsoodaan maaha, ina lagu qayliyo maaha. markaan hooyo ahaa, bilaa hurda aan ahaayan daalanaa, way igu dhici jirteenan marmar. halkan kaalay waan kula hadlayaa, human baa tahay. so waan joojiyey taa. markii aan joojiyey waxaan arkay ilmihii inuu ilmuhu qaboobay. ilmihii baa qaboobay. ilmuhu waa inuu si qabowle aad ula hadashay. waa run, human baa leeyahay, waa la daalan yahay, hooyaa leeyahay. cisho walba xasilooni lama imanaysid, laakiin waa inaan ku dadaashid. anu waan ku dadaalay, aad iyo aad baan ugu dadaalay. wax fiicanna waan la kulmay. inanteeda markaan qayladii ka joojiyey, disciplinkii aan si fiican inaan ula hadlon, welibana indhaha ka eego, oon la ciyaaro, oon waxay jeceshahay aan sameeyo, inanteeda dabeecaddeediiba aad iyo aad isku bedeshay. waa kaa walaalayaal, 5 shay waa 5 shayaan anigu inanteeda ka joojiyey oo aad iyo aad wax ugu taray. video kalaan samayn doonaa oon ka hadli doonaa waxaan ku bedelay. aad iyo aad baad mahadsantihiin. insha allah subscribe-ka igu dhufto channelka, like commentsna sameeya. waa kaas, waa inoo mar kale. asalaamu calaykum.